حسن شيخ حن قعدتنا إن حوها نسود دعي وواحد لصو هذا من عدويين أو ما أنتني استين كي مدينة هي كي حوها حمر بحي ودي لا يقول جيد ما تسلي جيد حق اللي جيد ما نكسر بابورها هذا أنا واقع وقيفة فنيها شرعي الدولة لا هذاك السدي ما الكلام ده عباش كفير سنة بعين الليل هذيك إيدي طالع هذيك سعلي هذيك وعقب سوي سين لعق ياسين جنا نكلا ده بحيري هذا إذا نك إذا سود داينه hooyadii soo korisay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu dirdilay gurigan aan hadda ka soo hadlayo Aamina Cadaawa Cali waa hooyadii soo korisay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud eedo ayay u tahay geeridii hooyadiis kadib waxa ay qayb weyn ka qaadatay inay soo koriso madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud dirdil ayaa jirkeeda ka muuqda waxayna cabasho ka tahay ciidamo ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya wiilkeeda wuu ka xiran yahay sida iyada noo sheegtay waxa ayna dalbatay in la soo daayo madaxweynaha Soomaaliya oo ay sheegtay in ay korishimiisa qayb lixaad ee ka soo qaadatana waxa ay ka codsatay in loo soo daayo wiilkeeda dadka dhulka ka xoogayana laga celsho kuwaas oo ka tirsan hay'adaha ammaanka ee dalka waa sidii hadalka u tiri Aamina Cadaawa Cali hadalkeeda qiiraha leh waxa kamid ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waa igaarkiiga eedadiis ayaan ahay waxaana la dhahaa Aamino Cadaawa Cali woona garanayaa woona yaqaana laakiin hadda waan duqoobay man aadi kari madaxtooyada qaranka waxa ugu dambeysay mar hore balse waxaan ka codsanayaa hadii muuqaalkiigu uu soo gaaro in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya uu ka soo jawaabo kadiro ina aniga guri ugu soo galeen oo ilmo yar yar oo hadda waa kuwan meesha ka muuqday ay dharka ka wada siibeen oo ooyeen oo isku buuqnay oo markaas aan albaabka mugay xooga isku jeesteen aan ka cararnay oo haddana soo qabsadeen oo wiilkay hadda u xiran naagtiisi iyo cunugeeda waxa guri ku xireen ay rafaadsan yihiin oo intaas wiilkaas maqan yahay dhibaatana haysato guriga ku xiran yahay ayakoo dad dilay waxaana la yiri adika disheen waa in madax maalin weyn ay ahayd kana inta waana sawiran ayayna ku geysteen gabarta oo suuq qaban dhulkay la dhaceen gabar yar oo tiisar dhulkay la dhaceen aad maxaa ku soo gaaray ana maano aan ku tuso antum ku taala dhaqar ciidanka waxaad ku geystay haye inta maxaa ku yaal intaani in la jada qarab badan waa leeyahay kana ciidankana waa sidoo kale waxa warbaahinta la hadashay mid kamid ah gabdhihii guriga ku sugnaay ee la kulmay dhacdada xanuunka badan waxa ay dhashay gabadheeda yarankeeda bismillaah magacayga waa Najma waxa ayeeyay Aamina Cadaawa Cali waxa ay dhashay gabadheeda waxa cabasho qabnaa noolo adeegsaday sharciga dawladda anigoo gurigeena iska fadhino aan xabba ka ogeenin oo subax 12 ka ahayd oo iska jijifnaa askar noo soo gashay wayna dishay waxa arta naga sameysay gabar naga dileen gabar kale xabada ku dileen hooyo waa yeel Aamina Cadaawa ayadoo iska fadhisay kursiga ee ka tuureen qolka hal noogu baabi'iyeen saasay tahan waxba nool ma reeban sharcigeena adeegsadeen aniga sharciga waxba ma qabno wadada islaamka la marsiyo meel walba hadaan cabasho ka dirsan qof walba waxay leeyihiin adiga asiyaashan adiga asaan waxay noo reebteen malahan wallahi waana lagu taadiyay sicina noola galay sharciga dawladda la adeegsaday meel kale oo cabasho ka fiirsan waxay leeyihiin adiga idi taala adiga sacali adiga wax qabso weyseen lacag yaasiin ganay nikla daa wuxuu yiri hadda idin soo daynayno system ayga system keena siyaasha rikaata idinka fujiso ninka yaasiin ganay la dhahay ninka calas saldhig dharkii leefadi wallahi cabashaha ka nahay dawladda hadda xaq fiirnayso umadeedu adeegayso dadka oo noo dhaawaceen oo dhulkan xoog u qaadanayaan hanaga soo garbaxaan iyo ilaahay laga baqo waxaan waa iska adduunyo yaano lagu diganin gabadha urur hadda la wiilka xiran gabadhiisa biyaa ka socdo si xun ay u dileen fiidiyoyaashu waa aragteen war haddii islaan la yahay dawlad jirto tigay Xasan Sheekh Maxamuud bilis waa ku bariyaa maanta dad ugu soo xeego wallahi runta ku sheegana waa dhibanahay si xun aan noola galay waana lagu taadiyay sharciga noola adeegsaday si qaab darna noola soo maray bilis wax noo qabta inta islaan waxa noo qabato هيا باي محا عصانيسان مدحوينها Soomaaliya maadaama abtiga uu yahay maxaa ka codsanay abtiga Xasan Sheekh waxaan ka codsanaa dhulkeeni inta soo sare hooyada iyadoo yar soo degtay habartay lagu dhalay aniga ii jeedii lagu dhalay
oo aniga nafarkeyga laba cunug aan ku haasto ayaa dad reer dhalbaas la dhahay nagu haastay waxay leeyihiin dhaxalka hob waaye aniga iskale haddii xaq loo fiiriyo haddii oo la dhahayo sharciga noola soo maray oo wax si gaagab loogu dhigaa noolaga qaada ilaaha og aniga waxaan codsi dhiibanaynaa xaqeeni in noola soo saaro waa noola dilay dilkeeni in meel noola saaro yaasiin gani ninka la dhahayo ee ninka calas la dhahay saldhig dharkiinle hanaga soo garbaxo hadday cadaalad jirto hadday islaamnimo jirto waxaana la qabto aniga maanta nahay haweenaan nahay aanoo jeedin hooyadeeda waa waayeel aniga habar nooma joogo aabba nooma joogto ilaahay ha laga baqo ummadda islaamka yaa lagu waxay rabaan yaa laga samaysanin lacagaana lagu faanay wax walbaana lagu samaystay meel walba wax walba maya aniga ina hadda dowladdan u gafa marabe laakiin waxaa jirto intaan in ka badan inay qarsan tahay war ilaahay ha laga baqo waxaan la waa loo biri yaana lagu diganin ilaahay ha laga baqo